Naadiga Burnley ayaa u safraya geeda Anfield iyagoo ujeedkoodu yahay in Liverpool markii labaad oo xiriir ay ku garaacaan geeda Anfield. Wiilasha oo maamula tababaraha reer Germany Johan Klopp ayaa raadinaya guushoodii labaad ee xilli ciyaareedka bilowga English Premier League 2021-2022. Naadiga Burnley haddii ay khasaare kala kulmaan Liverpool waxay noqon doontaa guuldarradoodii 10aad oo ay kala kulmaan hal koox Premier League. Naadiga Burnley ayaa soo gabagabeeyeen 68 guul oo Anfield Liverpool ay ku gaarayeen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. Waa markii ugu horeysay Liverpool ay 11 kulan ee guuldarro la'aan ahaadaan horyaalka Premier League. 6 kulan oo isku xigta ay adkaadeen oo ay Liverpool sidaasi sameeyeen. 11 kulan Liverpool ee guuldarro la'aanta yihiin 9 jeer oo kamid ay adkaadeen halka 2 kalena barbara ay galeen. Burnley haddii ay guul ka gaaraan kulanka Anfield Liverpool waxay noqon doontaa markoodii labaad oo sidaasi ay ku sameeyaan Liverpool tan iyo 1895. Geeska Afrika ayaa kulankaani la daawanaya dhexmaraya Liverpool iyo Burnley 2:15 duhurnimo ama 8:15 waqtiga Geeska Afrika. Intaa ayaan kusoo koobayaa saaxiibayaal xogtii ku aadneed kulanka Liverpool iyo Burnley. Miyay Liverpool ay horyaalka hoggaanka u qaban karaan kulanka duhurnimada maanta oo Sabti ay ka horjeedaan Burnley? Qaybta commentiga ayaad aragtidiina noogu dhaafi kartaan saaxiibayaal.